بسم الله الرحمن الرحيم. عشر كان مانتو وحو كسابسن yahay how to determine empirical formula when given percentage composition. sida loo raadiyo naaneysta fudud haddii lagu siiyo percentage composition boqolkiiba area kasta haddii lagu siiyo waana part 2 qaybta labaad. part 1kii waxaana la siinaya data mass ama gram, laakiin hadda waxaana la siinaya percentage boqoley. Why example, a chloride of silicon was found to have the following percentage composition by mass. Chloride ka silicon ayaa wuxuu leeyahay boqoleyda soo socota culays ahaan. silicon uriyaha la dhaho waa 16.5%, boqolkiiba 16 iyo bar. chlorine waa 83 iyo bar boqolkiiba. What is the empirical formula? muxuu noqonayaa naaneysta fudud of the chloride of silicon formed, ee chloride-ka silicon ee sameysmay. Okay, solution xalin. silicon waxaan haysanaa silicon 16.5%, chlorine waxaan haysanaa 83.5%. waaya qaabkee loo xalinaa? qaabkii hore gram uu ahaa molar massaan u qaybinayne molan soo helayne. hadda waxba kama duwana tii hore, procedureka waa isku mid, kaliya waxay ku kala duwan yihiin. silicon waxaana la siiyey 16.5%, chlorine 83.5%. qaybtii hore ee part 1ka waxaana la siiyey gram, halka haddana la siiyey boqolkiiba ama percentage. labada part 1 iyo part 2 waxay ku kala duwan yihiin malaha, keliya meesha kii hore gramka lagu siiya kan waxaa lagu siiyey percentage ama boqoley ama boqolkiiba. waayahay silicon wuxuu leeyahay 16.5%, chlorine 83.5%. waxaan leenahay assume u qaado in boqoleyda ay la mid tahay 100 grams. marka silicon wuxuu noqonayaa markaas silicon wuxuu noqonayaa 16.5 gram, halka chlorine uu ku noqonayo 83.5 gram. waaya sida caadiyan aan yeeli jirnay gramka u bedel mol. atomic masska silicon periodic tableka marka laga fiiriyo waa 28 gram per mol, halka chlorine atomic masskiisa atomic mass of chlorine uu noo noqonayo 35.5 gram per mol. waayahay moolka silicon wuxuu la mid yahay gramkiisa 16.5 gram oo loo qaybiyey culayskiisa 28 gram per mol. aan calculatorka qaadano xisaabiyaha maxaan helaynaa haddaan isu qaybino 16.5 divided by 28 waxaan helaynaa 0.589. moolka silicon 0.589 mol. intaasaan soo helnay. aan samayno moolka chlorine. waxaan haysanaa mol of chlorine culayskiisu waa 83
iyo bar garaam u qaybi culeys molekiyulkiisa oo ah 35.5 garaam per mol garaam iyo garaam isu saar waayo asigana wuxuu noo noqonayaa calculatorka haddaan isticmaalno 83 bar u qaybi 35 bar 2.35 mol waa moolka chlorine intaas markii aad joogtid chlorine ratioeeda waa 4 halka silicon ratioeeda ama saamigeeda uu yahay 1 saamiga silicon waa 1 saamiga chlorine ama ratio chlorine waa 4 hadda waxaan sameynaynaa empirical formula aan qoraynaa empirical formula markii aad qoraysid waxaa isgarab dhigaysaa silicon iyo chlorine silicon maxay kuu soo baxday mol ratio 1 halkaas waxaa oga dhigay subscript ama hoosgale chlorine muxuu soo baxay 4 subscript oga dhig laakiin hal hooseeye ah lama isticmaalo jawaabta marka waxay noqonay silicon tetrachloride silicon tetrachloride qaabkaas ayaa looga shaqeeyaa empirical formula haddii lagu siiyo percentage composition cashirkeena intaasuu ku egyahay haddii aad ka mid tahay asxaabta nagu xiran oo subscribe-ka hore u saartay channelkan ama kanaalkan waa ku mahadsan tahay sida aad noola socotid haddii aad tahay saaxiib nagu cusub fadlan subscribe share and comment السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.